qaaliga ameerka sida dunida daafiyada ka joogtaan baa aad baan idin salaaminaa caawa iyo caalamka ayaa ila jooga waa jokerkii mudaba soo dhageeyo joker ku soo dhawo asxaabta waxaad leedahay hal iyo laba kolle way ku daawanaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته والسلام يا كل شوكر كمدو والله محو جيدة مدو ترتمو soodhadaadina kulli way ku arkaysaa ها جيدة مدو أدو السلام يا وحلا يهرجيسة كلا يهرجيسة أدو كوسو دويريا aad iyo aad إن اليوم ما توحنوا بهنا هنا كهذا الله موضوع يرو مهمة aad iyo aad محو أهاي سيدي قفكو noloshiisa ugu noolaan kara shanta qaacide qofka ka dhigi karta inuu noloshiisa ku noolaado nolol happy aad iyo aad haddii aan markaa idinla wadaago waxyaabaha aan odhan karno qofka bini'aadanka wuxuu ka dhigayaa waa shanta qaacide nolosha kaa dhigi kara inaad happy noqoto aad iyo aad horta qofku waa inuu diin leeyahay diintaa ka horeysa wax walba qofku waa inuu diin leeyahay marka ugu horeysa waa xagoynta ugu horeysa qaacidooyinka kale ee jira waxa weeyaan horta waxa weeyaan inaad noqoto be confidence waa inuu qofku noqdo muxuu ahaaye thaq binafsak baa la idhaayo waa inuu qofku bini'aadankii horta isku kalsoonaado macnaha marka adigu naftaada ku kalsoonaataad wax kalena qaban kartaa weeyaan aad iyo waana ta loo baahan inuu qofku dee uu aad iyo aad uga shaqeeyo ta labaad een odhan karno qofka bini'aadanka noloshiisa happy buu noqonaya hadduu sameeyana waa markuu khayr sameeyo tafcal khayr wax khayra ifcal khayr khayrka inaad samayso soo dhawaada saaxib yaal soo dhawaada iyana way habboon tahay ta kalena waxa weeyaan waa inuu qofku noqdo qof mar walba dadka saamaxa wax kastoo kugu dhaca iska saamaxa aad iyo aad dhib iyo dhibaato kuguma aha inaad qof saamaxdo si kastay noqotoba aad iyo aad ta afaraad een odhan karo waxa weeyaan qofku waxay ka dhigi kartaa happy ama noloshiisa happy unbuu dareemaya waxa weeyaan inaad be positive noqoto qof maaragtay mar walba positive ah oo dhib iyo dhibaato aanay haysan aad iyo aad marka aad ra'yi dhinaca ka eegaysana waa inaad xagga positiveka ka eegto xagga dhinaca wanaagga dhinaca wanaagga khayraadka ka toor ta shanaad een odhan karo waa qaacidada shanaad ee qofka bini'aadanka happyga ka dhigi kartaa aad iyo aad waxa weeyaan inuu ahaado اللهم صل على محمد قفان دتك دبن aad هذا النقطة قفان دتك دبن أدونك نروح كل يوم مركزي waxba ka xumar أنا maayo يا أبو أنا أروح كل يوم أعطو waxba ka xumar maayo noloshaada inta noo sheegay waxyaabaha kale ee adduunka qofka maaragtay habiga ka dhiga waxaa ka mid ah inuu qofku noqdo qof mar walba xagga khayrka faa'iido ku leh xagga khayrka haa aakhiradiisa wuxuu horreysay waayo waxaad walaalka la jeceshaad naftaadana waad la jeclaato exactly taasaa iyaduna ah mid muhiima in waxyaabaha qofku marka loo baahanyay inuu helo matalan shay baad u baahantaho waad heshay shay baad u baahantay inaad hesho laba shay baa markaa lagaaga baahanya inaad samayso sax kow sawirkaa ka mid a waa inaad ku sawirtaa marka aanad waxaan haynin sawirka aad sawirtay wuxuu keenayaa inaad waxaa hesho okay markaad wixii heshana waa inaad noqotaa qof happy ku ah macnaha qof ku qanacsan wixii ilaahay ku siiyey weeyaan macnaheedu weeyaan marka waa inaad noqotaa qof ku faraxsan oo happy ku ah waxaa ilaahay siiyey markaad shayga uu qofku helana waxa weeyaan adduunkan kownkan ilaahay baa maamulo waxa weeyaan waxaa waan helay markaad tiraahdo waa inaad abaalmarinta ilaahay u celisaa waa inaad shukri noqdaa shukri alxamdulilahi rabbi alcaalamiin yaa ilaahay wadana siiyey siyaadi taasina waxa weeyaan qofka bini'aadanka waxay ka dhigtaa happy waxyaabaha kale habiga ka dhiga waxa weeyaan qofka waa inuu dadka soo qaraabada ah uu soo xidhiidhiyo iminka goormaa kugu dambeysay eedadaa iyo ayeedaa iyo habaryaraha iyo ummadihii iyo guryaha intay jimcaha isku imaadaan sidii bini'aadanka maaragtay goormaa noogu dambeysay silatu raxim inuu qofku xidhiidhiyo faamiligiisa iyo dadkiisa inkastoona dee ay bilahayno ay yuunka aniga iska wada tegeen xaggi loo badnaa meel alla xitaa dadkan iminka jooga baan kuleeyahay mujtamaca waxaan arki jiray 10 years ka hor ama 15 sano ka hor guryahu u buuxo khamiisii jimcaha reera kala dadku imaadaanoo gurigu buuq qaylo kaale arag macnaha dad isku faraxsan iminka heblaaya haysata ayeeya ku xukan in abtiyaadeena waxay isku haystaan jagooyin iyo balaayo dadki way kala fogaadeen marka waa la kala yaacay
marka waxaan odhan lahaa dadka bini'aadanka Kala isu soo dhawaada. silatu raxim waa inay samaysaan nebigu dheeldheelu muu hadli jirin waxaan waa inay berito la soo noqonayaan wuu ogaa Alayhi salaatu wasalaam. marka maanta taasaa ka baxday calayhi salaatu wasalaam meesha way ka baxday ma fahamti qaacidada lixaad aan odhan karo qofka bini'aadanka habi bay ka dhigi kartaa waxa weeyaan inaad mar kaste niyadaada geliso wax fiican aad iyo aad. mar kastoo niyadaada wax fiican geliso wax allaaliyo wax kaa xumaanaya ma jiraan waxaad isku dayaysaa inaad habi noqoto waxaad isku dayaysaa inaad mar kasta waxaan aad doonaysaa inuu horta dee niyadda khayr kaleba ayaa wax laysku siiyaa soo maa niyaddu markay khayr leeda wax waad helaysaa laakiin niyadaada haddaanay khayr lahayn waxba ma helaysid marka waxaan leeyahay ummaddan soomaalida ah waxa weeyaan xaggaa weyn horta ku liidanaa 100%. aad iyo aad. waxaana habboon inaan kor isku soo qaadno arrin cusub baa ilaa maanta aan facebook ku waar aniga lafteedu arrinkan cusub waan arkayayo haye dee ilaahay ba dhagay farq waan yaabayba haye bismi illaahi araxmaan araxiim tan muqdisho ka dhacday soo maha tan muqdisho ka dhacday waa subxaanaka yaa cadiibti waxa dhacday baa lagu leeyahay qisadan aadka ula yaabay waa laba hablood midna siraad laydhaa midna nimca laydhaa baa life ka soo galay aad iyo aad. waxay leeyihiin waxay soo galeen waxay ku soo hoos qoreen lamaanaha muqdisho waxay leeyihiin waan isqabnaa haye robert mugabe ninka laydhaa mataqaana kenyaati gabe haa ee u dhintay u dhintay haa haa ayaa waxa dhacday waxa lagu yidhi waddankii waxa kusoo badanaya ninka guursanaya naagta guursanaysa markaasuu yidhi waxa qabtoo xidhay buu yidhi ilaa intay ilma ka dhalayaan markay ilma dhalaan soo daayay buu yidhi mamnu ay dhalayaan dee xaggee ka dhalayaan filim buu u dhigay markaa Waxa jeelashaa lagu wada guray lama arag waa mutul ku taagay haa yaa marka waddanku markuu islaam yahay ama diimaha samaawiga oo dhan haa way diiday inuu qofka bini'aadankii jirkiisa bedelo ama ninkii uu naag iska dhigo in gabadhii ay nin iska dhigto oo xubnihii taranka bedesho aad iyo aad. iyo in gabadhii ay gabadh guursato iyo ninkii inuu nin guursado waana iminka waxaa lagu magacaabaa waxaa la idhaha iminka genderka awal berigii hore qofka baasboorka markuu qaadanayo genderka female iyo male baa loo kala qaybin jiray soo maha aad iyo aad. iminka waxaa la idhahaa male qura la ilaaha ila allah. ma waxaa la idhaha gender baa la idhaha gender waxaa la isku idhaa naagtii ninka iska dhigtay ninkii naagta iska dhigay naagtii naagta guursatay iyo waxaasoo dhan baa gender iminka la isku idhaa meelaha lagu kala eegi maayo suulibaad gelaysaa waxaad arkaysaa suuligii shemailka markaad dee qurbaa tagto suuligii shemailka macnaha nin oo naag baa gelaya iyo naag nin iska dhigtaa gelaya sax macnaha halkii lagu odhan jiray waa suuligii dumarka iyo suuligii ragga tii sara jooga wixii way isbedeleen markaa ma tii sara jooga markaa arrinkan markaa ugubkii muqdisho soo shaacbaxay aad iyo aad. labada dumari waxay yidhaaheen waxaan ikhtiyaar u leenahay nolosheeda sax ikhtiyaarna uma laha ilaahay agtiisa wax ikhtiyaaraad leedahay ma jirto ma jirto haa wallahi. ilaaha ku abuuray wuxuu ku leeyahay sidaa iyo sidaa iyo sidaa samee sidaa iyo sidaa iyo sidaana waad noqonaysaa sax ila kii ku abuuray miyaad uga cilmi dhaantaa waxan umay uguma dhaantid marka waxa weeyaan maxaa dhibaatada ka dhalan karta inay gabadh guursato ninna nin guursado dhibaatada taalla meesha ka dhalan karta waxa weeyaan horta waxa family la leedahay meesha ma soo kordhayo ma soo kordhiyo diintu markaa maxay u diiday wax soo kordhayaan jirin dee haa diintuna waxay ilaahayna wuxuu doonayaa inuu ubad dhasho ubad kaa dhashaana ay sameeyaan farac faraca ay sameeyaana uu noqdo mid ilaahay u xamdiya ujeedada laga leeyahay markaa inuu qofkani qof guursado oo uu ilmo dhalo wax kale ma aha ilaahay tuu ka doonaya isagu siduu doonaya ma garanayo bini'aadanku laakiin ilaahay siduu doonaya waxa weeyaan in qoys islaami dhasho qof ilaahay ku hadaaqiya magaciisuna uu dhasho ujeedada adduunka uu ka leeyahay waa taa ilaahay marka waxa weeyaan diintu markaa maxay u xarintay dee family gaas cali channel gaasoo saaxiib aad baan kuu salaamay aad iyo aad baan saaxiib ku salaaminaa gaas marka ha socoto hawsho madax baatay ka waran sidaan u wadno sidaan aad moogu qanacday markaa faa'iida darrada ku jirta inuu nin guursado gabadhna gabadh guursata waxa weeyaan wax soo kordhayaan jirin dee in adeer ma laba dhagax ba wax kala faa'iidaya may waxba meesha ka iman maayaan dee kuma jiraan markaa gabadha tiri gabadh baan guursaday la ilaaha caqli adigu maaha caqligaagi maaha baa leenahay waa caqli reer waxa weeyaan waa ka socota waayo diinta kiristaanka caadiga ayaa aaminsan inaanu nin guursan karin gabadhna gabarh guursan karin marka waxaan waa ururadaasa imika adduunkiisa soo shac saaraya marka waddan marka la doonayo axmed boqortay saaxiib aad baan kuu salaamay suldaan aad baan kuu salaamay waxa weeyaan marka
dee marka aad aragto gabadh guursatay laagtana ku qaba axmedow diinta kiristaanka waa muxarim diimaha samaawiga iyo samada kusoo delay oo dhan waxaas waa ka muxarim kii gaalkaabaa og naag guursatay inaan wax ka faa'iidayn adoo soomaaliyana maxaa u ogaan weyday markaa waalaya dadkani midda kale iminka qofka soomaaliga ee diinta ka baxaya awal wuu carari jiro qurbayey waxbuu yara carari jiro diinta ka yara bixi jiray haba ka baxabe maanta ayaa timi inay tiraahdo gabadh muqdisho joogtaa waxaan guursaday gabadh kale fucking shit abti waana waalaysaan annagoo reer xamaro markiina horeba murugadiinu na dishay oo qofkiina idinka dhimanaya warwarkiisuna dilay oo ummadda ilaahay islaamka dhimanaysaa warwarkeeduna dilay ya ayaa noogu dartay naag guursatay ama naag qabta dadeero markaa waxaa la yidhi adduunkana ilaahay wuxuu yidhi dee qoomna ilaahay ma dulayo ilaa iyagu istuleeyaan soo maa midda kale ilaahay ku daray waxa weeyaan dhibaato kastoo kugu dhacdana waxa weeyaan waxaad gacantaada ku geysatay waad fahamtay soo maa aad iyo aad marka qofka ilaahay iyo rasuulkiisa maynaan aragin laakiin caqligeena ku garanay soo maa marka gabadha le maanta gabadh baan guursaday faa'iidada ku jirta kalow horteeyadaa sheegaysa reexamarowna ha nawaalina waa nawaalaysaan maalin walba waxbaa noo soo saaraysaan reexamarka waxay ku weelayiin mataqaana waxa weeyaan maalinba waxbay soo saarayaan maalinba sheekay la imanayaan war ilaahay haddaad naba ka doonaysaan oo ilaahay khayr ka doonaysaan waxaa dadka ha laga qabto waxaa ummadda ha laga soo qabtaan odhan lahaa fariintaan u gudbinayo reer muqdisho waxaan leeyahay labadaa dumar ay waxaa ka sheekeynaya fadlan ilaahay haddaa raalli ahaansha ka doonaysaan dadkaa meesha laga soo qabto annagu qaraxiina markii horeba ka ooyeynay oo habeen walba mid halkaa nagaga maqan wadnuhun xanuunaya lahayn halkeed joogta halkeed maraysaa wax ma ku haleelay ummadda islaam ee kale ka horyeyeynay ayaa maanta soo saaraysaan inay diintii intay ku ciyaaraan ay dhahaan naag qabta war ilaahay cadhaa ka qaadateen oo waxa weeyaan diinta cadhaa ka qaadateen oo dadka islaamkaa cadhaa ka qaadateen lama kala shaqaysto waxa weeyaan qofkaa maanta waxaa sameeyey berri ka maalin dhibkeedin haystaa oo meedhani waa kaasoo kale kaasa idinku dhex jira ha iyo mid intuu xamaro ka cararo ama meel kale ka cararo waddan kaleo soomaaliyeed intuu ka cararo intuu qurbo tago idhaaha waxaana laygu sameeyey abuskan de wuxuu ku helayaa qariir yar buu ku helayaa moogta markaa waa inuu film keenaa yurub buu tegay yurub waxba ka garan maayo adeere markaa waa inuu baab wax ku cuna keenaa talabaad mid baad ilowday markuu halkaasta ku dhahdo saasaa laygu hayay uu fatkahana ku dhufto markaasaa waxaan ku bidhaabiyagiisu laba dhigayaa baash dee ma isaga ninaan sharaab cabayn ama hawlo kale ku jirin dee intuu yurub tago iska soo hadli maayo odhan maayo hebelow sidaanaan iyo hebelow sidaanaa noqday hebelay sidanay noqotay ma garatay marka waxaan leenahay ummadda islaamka waxaas waa foolxumo ha laga soo qabto dadka aad ha looga soo qabto weliba waxa weeyaan ku sheergareeya geeyada madow waa inaad ka soo hadasha arrinkaasaan leenahay aad uga soo hadal marwaa tahay qof qaaliyaa tahay kaale arag baa tahay waxa weeyaan qof daawashadeeda horta aad uga helaatay geeyada madow maaragta aad baad u tagartaa naagaa intaasay dheertay maalintii waxay ku dambeysay barshuudka raacday ku dambeysanayn maalintii barshuudka raacday waxaa ka darreyd maalintii ay turkiga joogtay kaale aragtaay subxaan allah geeyada madow wallaahi bilaahi tallaahi new laakiin inaad maxaad shanta soomaaliyeed laygtoodii baad iga haysataa ma waxbaad wadaagtaan geeyada madow meel baad iska shabahnaa magaca horta madowga waa iska shabahnaa midowgeeduna waa soomaalida waxay odhan jirtay waa kii akhtar jebiska la idhaahdo soomaalidu ma laha mawti annaga iyo muxuu ahaayey geeyada madow markaad aragtay inaad soomaalinimadaa ka muuqata afrikaanimaa ka muuqata waxbaa iskugu dardaray islaamnimaa ka muuqata geeyada madow ciyaar maaha marka waxaan leenahay reer muqdishooy arrinkaa isagaa ka daba taga labada naagoodna dadka ka soo qabta nacdale ha ku dhacday bini-aadan maaha waxaniye soomaalidayna daawanaysana maxaad ku baaqaysaa soomaalidayna daawanaysana waxaan leeyahay amba ciddayna daawan doonto markay videoga aragto cidda videoga aragto waxaan leeyahay war soomaaliyey toosoo isku tiirsada qaran dhaca muxuu yidhi qudhac jabay sidiisii qarankii mawliicay hees baasaa ahayd dhiila ahaayo ay qaadayeen allahuma salli calaa maxamed nimco yaasiiniya soomaalidii saasay u dumeen qib
goor ay soo kicina lama garanayo wallahi sidii quracaysa u dhacay sidii geed waxa galay ha ay saa u dhacay ah marka goor aad soo kacaysaan ilaahay baa ogey war asxaabta waxa leenahay xawiyaan waxaa soo midhan bay ku dhex jireen war leegtan noqota asxaabta comment video share gareeya waxba bac war waxa kula kala hadhina waxba gabigiisa bay israacay baa la bilaa calag inkastoo Soomaalideenu horta waan u fiirsadaan ugu xaasnimo lafta ka giri jirtaniyo imika nin gaalo cado boodaya ama nin kaloo cado oo muxuu ahaay warday Soomaalinimadu waa inay halkan kaaga jirto problemka Soomaalida haystaan ku sheegaya aad iyo aad waa dad dib iyo dhibaato ku soo koray rafaad Soomaha waxa ka maqan basic dulcad bay ku soo wada koreen ha dulcad ma garanaysa dulcad anaba ku dhashay ilaahay ku dhahay la ilaaha illa allah marka waxaan ku soo koreen basically waxay ku soo koreen noloshii basic ahayd ma hayaan okay Europe buu tagayaa Europe markuu arko wuxuu arkayaa inaan ki yaraa oo aaminsan wadankiisu inuu wadankii adduunka bartankiisa yahay iminka ninka Japanese wuxuu aaminsan yahay wadankiisu inuu adduunka bartankiisa yahay aad iyo aad ma fahantay anigana maxaa la igu yiri ka han qaado dadka la dhac isbaara samayso kitaabkii waxaan samee ayaa la igu soo abaabiyay marka beritoole markaan Europe tago waxaan lama qabsanayo waa inaan kooranayo wallahi reer galbeedku waa dad jira weeyaan waxa ka keenay ma taqaana waayo basicii baa ka dhisan oo waxa weeyaan siyaasi nijaas iyo wax xun baa dadkii hay'adii ka lumiyay wadadii ka leexiyay danihiisa eeganaya marka Soomaaligi basicii baa ka dhiman oo waxa weeyaan hadii maaragtay isagoo muxuu ahaay markuu 5 jir 6 jir 7 jir uu yahay iskuulka markuu tago maadada wadaniyada loogu dhigi lahaa aad iyo aad halka Kenya laga barayo wadooyinkeeda iyo inta haysatay hektar iyo safaarigeeda iyo muxuu ahaa Allah sallallahu alayhi maxamed inta xayawaanay ku nool laga sheekeynayo waar Hargeysa iyo Laskeel iyo Baraawe iyo Cambihi Jamaame iyo waxa idinkoo iga sheekeeyay la qaatay aad iyo aad Soomaa marka dadka waxa laga lumiyay hay'adaha muxuu ahaa NGO-yadan iyo waxana lagma Soomaali dambe laga leeyahay dantaasi maalintii dhamaato in bay Soomaali soo kacaysaa inta kale waxay leeyihiin qaranki mawja muxuu yiri quraca sidii qaranki mawlicay marka ummadiiba saas u dhacday qorayso ka ilaahay baa waxaan leenahay dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay war basically wax barashadiina wadaniyada lagu daro war qofka la soo baro wadaniyadu waxay tahay anagu habi kuma yihiin inaan daawado daaraha London inaan halka ka daawado habi kuma yihiin waxaan doonayaa inaan arko in Allahumma salli ala Muhammad banki wajhale in galeydii ka baxaysay gabiilay arabakhidii noloshii saxda ahayd warday reer guuraaba ahaydeen Soomaaliyeed reer guuraanimadiiniba wallahi idin dhaantayba social media khadku inta ka sii saarayba war reer miil laygu yiri khad isticmaalo waxaano تيادر والله قول لك سومالنا سيدنا وراعي سيدنا وراعي سو راعي marka Soomaali waxaan leenahay waxaan waa la idin dhigay waxa idinku isku dhigtaan baa habboon baan maleynaya waxa weeyaan anu waxaan ka jecelahay Cambihi Jamaame markaan maqlayaday abaadarkiisa khudaarta ay leeyihiin resource-ka iyo hantida meesha taalo waxa ka soo baxaya wabiyadii Shabeelle waxaasan u baahanay inaan wadaniyada ku barto buugayga inaan ku barto Soomaa iyo muxuu ahaayay dekadii Berbera iyo marsadiisa u shaqeynayso waxa soo dhan baan u baahanayna faradii Hargeysiyo guriga samo ayaa galab socodku ugu la yeersada marka Soomaali waxaan leeyahay waan ka sii baxaynaa waxaan ku soo gabagabeynaa والله سارة نبي كم هايسو والوالالكاga dhiban ee xamar inaga soo qabta naagaan walwaalan inaga soo qabta lamaanaha qarnigan lamaanaha kulaha waxaan ku intaas oo dhan waxa ku dhex jira ummadda waxa weeyaan waa intaas oo association ba ku dhex jira waxaan waa loo dhigayaa wax loogu لا بالله تلاي والله إذا كل شباب والله إذا كش شباب والله أبدي سلام يا شوف واحد سمعنا لايك شير كومن شير كومن كا أنت بواحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد نجيه لسه هبي والبا إن شاء الله بسم الله كريم حينو بلاننا هبي والبا إن عنو فيديو أنا دين سوق الله لايف كا برنامجات طلع يبتم شيكوين هتين نقطة مددالة هتين نقطة هدي أي نقطة واحد والبا وانا هنا إن شاء الله بسم الله كريم واحد سمعنا سان وين كنت داشان إن تسعاوسان إن أدسبو خطان أصحابي walaalkaaga leegta iyo sheerta iyo subscribe to baahan adiga dib kuma hayso ya laakiin isaga wax weyn bay u taraysaa dhac kaga siisan wax Allah iyo wax idinka qaadanaysa ma jiro ninka cadaanka iyo ninka hindigaaba idinkan saasan kule ka macaaneeyay daanagana ka macaaneeyay
aad baa idin aad salaamay baan idin salaamayna dhammaan waxaan idinku tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kastood joogtaan dunida daafiyada waxaan leenahay waxaad nala socda insha allah bismillahi kariim nabadgelyaha